كلتي wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada aynu maanta oo talaada idin soo gudbanayno waa barnaamijkii subaxnimo warar waaweyn oo xalay dhacay ilaa saakay xaaladda bariga dhexe ayaynu barnaamijka ku soo gudbin doonaa ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa weeraro culus ayaa fajarkii saakay lagu qaaday magaalooyin ay Talaabiib ka mid tahay waxaana laga dhigay daakum meelo kala duwan ayaa gantaalaha sida roobka looga dhigay haddaba xaaladdu sida ay tahay iyo wararkii ugu dambeeyay warbaahintu saakay waxay ka qoreen ayaan idinla wadaagi doonaa haddaba warbixinada ugu horeeya ee soo baxay saakay waxaa la sheegayaa Iiraan inay riday mawjad sawaariiqa oo ay ku garaacday Israa'iil fajarkii saakay oo talaada ahayd waxaa la maqlay qaraxyo waaweyn magaalooyinka Qudus sidoo kale Talaabiib iyo Ghulaaf Gaza ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay xaqiijiyeen inay weeraradaas iyagu qaadeen oo ay markaa ku weerareen Israa'iil saakay waxaa la leeyahay mar kale ayaa roobka looga dhigay gantaalo Qudus iyo maxay Talaabiib iyo Ghulaaf Gaza iyo dhulkaas oo dhan gantaalaha ku daatay laakiin waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah saakay video Al Jazeera ay soo bandhigtay oo telefishinka aan ka duubay aan idin la wadaagaya videoga saakay waxay leedahay Jazeera gantaalihii Iiraan ay soo riday mid kamid ah markuu dul yimid hawada Talaabiib oo gantaalihii difaacu ay Tuuriya ku bilaabeen 30 xabuu noqday 30 shan meelood oo milix isu raac mid walbana hadana alaab kale meel kale si aad xaafad kale aad waxyaabaha la yaab kale oo ilaa hadda ay la fajacsan yihiin Mareykanka iyo Israa'iiliyiinta ka bitay haddaba markaan idin tuso videogaas caaqibada leh ee saakay Iiraan wacdarahi ay dhigtay بلاغات من قبل الإسرائيليين في تلك المناطق عن وجود أي مصابين وكذلك الإسعاف الإسرائيلي لكن كما أشرت هذه المعلومات بحاجة إلى مزيد من الوقت ربما إذا كانت هناك معلومات بحاجة إلى مراجعة الرقابة العسكرية الإسرائيلية أو كذلك انتظار وصول بلاغات من الإسرائيليين بشأن سقوط شظايا واتاي مركا فيديوغاس wuxuu muujinayaa leeyahay dagaalkiyo bil ku sii dhow iyo awoodda Iiraan ay leedahay wali ciidanka Mareykanka waxay yiraahdeen 9,000 oo weerar oo hadaf ayaynu weerar ku qaadnay markii dagaalku bilowday ilaa had waa 9,000 meelood oo Iiraan ku taala weerarnay haddaba 9,000 aa weerartid ama 10,000 aa weerartid maxaa joojisay habeen walba gantaal cusub aba la soo baxaya 30 madax mid wata caawa waa la yaabay video waa daawateena u maleena waa la yaabay caawa wixii xalay dhacay saaki waa laga wada hadlaya warbaahinta oo dhan ka hadlayso haddaba marka aan idin tuso warar kale oo ku saabsan Xisbullaahi siday u adeegatay iyadana intii lagu mashquulsanaa alaabtan 30 madax leh oo gantaalihii Iiraan iyo kuwii meesha jooga kulli ay wareersan yihiin ayaa drones iyo gantaalo Xisbullah inta soo qaadatay hanaankii difaaca ee waqooyiga Israa'iil difaacay oo dhan qayb kamida ayay gubeen oo cagta mariyeen siday taynagta uga saareen wax loo reeba malaleeya qubba xadiidiya iyo biqlaac daa'uud iyo magacyadaas leeyihiin hanaanka difaaca gantaalahooda difaaca magacyadaas leeyihiin bogtay marka gaashaankii birta ahaa iyo biqlaac daa'uud iyo alaabtan waxaa la tusay tabartooda waa gantaalihii ay bilyaniska uga qaateen imaaraadka ay ka gadeen waayo gantaalahana qatar waayay xataa jarmalka soo doontay hadda laakiin كم قفلها ماله ما قوى حتى مال الحياة تبرتوده وحلو أركي إيران لو أرك هذا بمرك أنا تصور أركي وقدم بيجي حزب الله وحي شاكتي ساكي هذا ردي إسرائيل إني مركا أيام مدافع دودي دفاع هيد إني كوجراعين ديار ضد الدرونسة حزب الله وحي شاكين إني وردا كوقادين ديجان كلي رادو معلوط ترشيحة وكيا لو قوي إسرائيل هل كاسوا أي كويرين قتالهاس
iyo raadaaradaas waxay ku weerareen musayaraad ama diyaarado daroona oo kuwii isqarxinayay ah ayay halkaa ku weerareen. waxay sidoo kale weerarkooda u isticmaaleen sawaariikh ayay iyana ku garaaceen halkaas. marka dhowr magaalo ee iyaguna dambaska ka dhigeen. marka xaalku marka halkaasuu joogaa, adaaba wada hadal sheegayo, waa la isbaabi'inayaa beesha. hawshaasu halkaasee maree. dhanka kale waxaa la leeyahay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha israa'iila xalay telefoonka ku wada hadlay. maraykanka waxay leeyihiin ilaa 15 qodob ayaanu isla soo qaadnay iiraaniyiinta oo dagaalka lagu joojinayo. waxaana annagu doonaynaa wada hadallada inuu garwadeen ka noqdo guddoomiyaha baarlamaanka iiraan, halkii markii hore wada hadallada uu u qaabilsanaa wasiirka arrimaha dibadda Cabbaas Caraaqji. marka waxay Caraaqji nin caadiya ma ninkaas baarlamaanka xoogaa fiican ah. waxay rabaan siyaasi Amerikaan la yiraahdaa inay madaxda Iiraan kala dilaan ay rabaan, kana fiican kana xun markii la dhexdooda kala shakiyaan. Iiraanna maxay tiri waxaas kuma jirnaan wada hadalka markii la galayo iyo hawshiisa markaan diyaar noqon annaga qofka arbageysaneen. maraykan maxaa ka gala qofka anaga wada hadalka loo qaabilay wax kaga jira ma jiraan. marka xalay waxaa leeyahay marka ninkii madaxweyne ku-xigeenka ahaa ayaa wuxuu la hadlay ninka la yiraahdo Netanyahu. waxay marka isla soo qaadeen sida suuragal u tahay. markii telefoonka u dhigay Netanyahu wuxuu yiri annaga dagaalka ma joojinayno, waa wadaynaa ilaa maslaxadeena aan ka aragno. muxuu wadi karaa kaligiisa dheer nin wax falaqeynay wuxuu yiri war nimankan maraykan hadduu ka tago ma Iiraan iska celi karaan. war nimanku faataalayaal waa la dhameeyey booto iyo wax ma taraya dheh. waataan barnaamijkii xalay kusoo qaadanay qabuurayaashooda inay saas u buux dhaafiyeen. dad badanaa daawaday, inta aan daawan way daawan doonaan. waa barnaamijkii saddexaad ee xalay. waa barnaamijka qodobo aad u xiiso leh oo ku jireen. marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekadaan. haddaba waxaa la soo sheegayaa sida warbaahintu saaka ay ka hadlayso wada hadalla ayaa dhex maray ninka la yiraahdo Fanis oo ah madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka iyo Netanyahu. waxayna ka hadlayeen heshiiska la filayo in lala galo Iiraan si loo dhameeyo dagaalka. haddaba waxaa la sheegayaa in dhaqdhaqaaqyada Maraykanka iyo Iiraan in heshiiska xaggiisa loo dhaqaaqo ay dhowdahay sida wada hadalladu ay leeyihiin. marka sheekadaasu marka halkaas ay mareen. heshiiskan marka dowladaha carabta oo dhaqaalahooda wiiqmay ayaa Trump culays saaraya leeyahay. war waa baaba'nay. heer maxay gaareen qadar diyaaradahoodii duulimaadyada sameynayay in la qaado eeraboorro Yurub ku yaala inta loo kiriyo la iska baarkimo. diyaaradihii waaweynaa ee ay maaragtay Qatar Airways iyo meeshaas la iska dhigay. imaaraadka sidoo kale kuwiisu wuu la qaxay. hantidii dalxiiskii iyo waxay iyo Dubai iyo qof aadam male wixii oo dhan hoteeladii waa haawanayaan. wax kasta rafaada ka dhacay meeshii gaajo iyo wareer soo socdaaliyeen. marka nimankii marka Maraykanka ku dhageen waxay naga jooji dagaalka. nimankan ma soo afjari kartid. hal bil ayaan saan ku jirnaa. cabsida iyo walaahowdka iyo kala cararka aan gelisay waa la yaab. meel walba nimankan hadda ku sii wado waa la sii gubayaan. marka cadaadiska halkaas ka yimid leeyahay. isagiina tiisha haysato gudihii waa looga kacsan yahay. marka hadda geemka uu ciyaarayo wada hadal socdo kana socdo uu leeyahay. sicirka shidaalka ayuu waxay tiri Iiraan ayuu rabaa adduunka inuu indha sarcaad ku sameeyo. wada hadal socdo markii la shidaalku uu raqiisaya waa la isdagaal rabaa shidaalku waa qaaliyoobaya Soomaa. ninkan waxay leeyihiin suuqu la ciyaaraya. annaga waa naqaanay dheh. meeshaan wada hadal rasmi ah ma jireen. dagaal iska garaacay taageen. haddaba marka sheekadu marka halkaas ay maraysaa. dhanka kale marka waxa leeyahay wada hadallada waxaa la filayaa in wafdi Maraykanka ay tagaan magaalada Islamabad ee caasimadda Pakistan si ay markaa ugu diyaar garoobaan in wafdi Iiraan ayaguna halka ay tagaan oo wada hadal markaa maalmaha soo socda halka uu ka dhaco. Pakistan marka waxay tiri anagu diyaar u nahay in wada hadallada halka lagu qabto. laakiin Iiraan wali xageeda wax war laga ma hayo.
maraykanku laakiin warbaahintiisu waxay sheegayaan in wafdi maraykana ay halkaa kusii jeedaan oo wada hadallada qaabilsan. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray, mas-uul Bakistan oo u warramayay telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay martigeliyaan wada hadallo markaasi dhex maraya Washington iyo Tehran. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Bakistan ayaa wuxuu u sheegay isaguna shabakadda CNN ee dalka Maraykanka in markaa waddankiisa uu diyaar u yahay inay mar walba martigeliyaan wada hadallo haddii ay waafaqaan dhinacyada Washington iyo Tehran, labadaasu hadday waafaqaan uu leeyahay. marka hawsha iyaduna halkaasay joogtaa oo halkaas ayay xaaladdu kasii deganaysaa oo ay maraysaa. haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa Iiraan oo sheegtay in la weeraray goobaheeda gaaska, isla markaana ay jawaabteedu diyaar tahay, miiskay saaran tahay. haddii gaas iyo shidaal la weeraro, gaas iyo shidaala u maqan. haddii koronto la weeraro, korontaa u maqan. annagu wax kale bareeg ma qabanayna. haddii waxayna lasoo weeraro waa weerarayna. carabtii saasay u kaadshayaan maanta. markii hore gaaskii waxaa la weeraray imaaraadka, kii qatar iyo wixii oo dhan la weeraray. hadda ma sacuudiga xaggee la geli doonaa, ma kii kuweyda xaggee lagu dhufan doonaa lagu haya. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan, saakay warbaahinta Iiraan waxay qorayaan duqayn Maraykanka iyo Israa'iil inay u geysteen goobaha gaaska la yiraahdo Asafhan iyo Qarmahashar ee ka tirsan magaalooyinka waddankaas. haddaba warbaahinta Iiraan waxay sheegeen talaadada maanta in weerar wadajira Maraykan iyo Israa'iil ay ku beegsadeen kaabayaasha dhaqaalaha ee gaaska Asafhan oo ku taala bartamaha iyo Qarmahashar oo ku taala koonfur galbeed. haddaba waxaa la sheegay in kastoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay inuu dib u dhigay inuu beegsado goobaha tamarta iyo gaaska Iiraan, haddana in weeraradaasi ay dhaceen. wakaaladda wararka ee Faris ee waddankaasi waxay sheegtay in markaa weeraradani ay ahaayeen kuwo markaasi loogu talagalay in halkaa lagu weeraro. annaguna waxay yidhahdeen jawaabteena la sugay dheh saacadaha soo socda. marka xaalku halkaasuu bara jugtaasaa la isku hayaa, waa la isgaraacayaa saacad kasta. haddaba marka wixii wararaya soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idinkula wadaagi doonaa.